muujinaynaa inay dawladda South Africa uu xaqiisa helo ayaan u imaanay meeshan annagoo ka xun dhibaatada nagu dhacday oo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 toon ahayn waa sheekada ku saabsan Maxamed Deeqow oo la waayay sanad ka hor waxayna ka dhacday deegaanka Polokwane ee gobolka Libombo halkani aan imika ku suganahay waa maxkamadda gobolka waxaana hortuban Soomaali fara badan waxayna doonayaan inuu cadaalad helo Maxamed Deeqow oo la waayay sanad ka hor kolkii ay soo ilaatay maxkamadda ayaynu waxaynu aadnay dukaankii uu lahaa marxuumka si aynu wax badan uga ogaano arintani waxaynu halka kula kulannay qaar ka mid ah dhalinyaradii uu la shaqayn jiray marxuumka geeriyooday Allah u naxariiste السلام عليكم. وعليكم السلام. برادة. يورزا. سيتين. ما شاء الله. حالتك ورم. حالتي وادك. ما شاء الله. هبي. كل دقنت سما. ما شاء الله. ماشي عدلة جوكتان. ماشي عدلة جوكتان كنا غزال. هاي. وحالتي واسنان. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالتك ورم. ما شاء الله. هاي هل كانوا كنا شين؟ هل كانوا كنا وانقرت. ده بيشان القدر وحوم عليها بكو يترون بلود هم بالله يترون بلود وينو نغيسان جعله. مركي اللواي. مركي اللواي لكن كده حلا. أوكي وأسلا شقيني سين سو. وأسلا هراء إسكول شغال لك حلو يقولوا ما ملا شقيين أنا. حلو يقول لوي هاي وين كاس لما شقيين أنا. وحكلوا نقوم قالة أنت كان قفر الودلي. محمد ولا الكيسة. يس محمد ولا الكيس ويل 2013 كي الهبين مدو لو سو جب شيء ولا الدلي. محمد نجر دلوين أو مدح لو جيستي مدح سيد لو جدل محمد. marka hadda gobolkan aan joogno Libombo laha Johannesburg oo kale area dukaamada shabaq baa halkan ku xiran oo lama soo gali karo idinka caadi marka amaan gobolada ugu amaanka badan South Africa meeshan ahayd marka sidee wax u jiraan wax la arko oo wixii dhaca wax ilaa xaqiis ka dhaceen waa la hadda aniga wax amaan darre oo dilaayo oo maalintiina dhibaayo ma arka habeenkaas ninkaas oo wadada gaarigiisa isugu wato maqan oo isa u maleeyahay in wadada laga qabtay ama maleeyahay ninkaas jiro mug wax noogu soo galay wiil ku dhinta meesha waa loogu soo galay 2013 kii eeday hadda intaan joogan wadar joor ugu yaraan sanad camal ah hadda hor mar la shaqeey habeenaa la isku day in la soo galo habeenka ilaaha naga ciinsho maxay dhacdadan wax ilaahay qoray ma garatay ninkan adiga subaxdii uu soo kacay dukaanka sidoo ana furo ma garatay dukaankan hadii ani aan furay soo bixi jiray xaafad guriga baakimo soo baxsan jiray ka bacdi wuxuu ku baakimo jireen dukaanka irdiisa marka ka bacdi adiga guduhu kala jiray wax macnaha uu ku soo adeegan karo ayuu soo qaadan jiray marka adiga ninkii waa iga tagay dukaanka adiga maalintan joogay adiga mar iyo laba damcane stock ina u sheegaa rabay oo macnaha uu soo ilaawin amal aan wacay adiga 4 saac meel amal marka adiga ninkii hadii telefoonka waa dhici waayay waxaan sirniyo ninka maxaa ka siyaama telefoonka ka damay I don't know wala ma aqaanooniyo marka adiga waa fiiriyay adiga maray 10 saac tahay aan ku celiyaadana marka adiga ninka waa sidii telefoonka wadansan yahay marka adiga maghribka la gaaray dukaankan waa iska taqaan qof kaliis ma joogi karo qof kaliis ma seexan karo waa iska meel cabsila Maxamed Deeq lama dilin oo kaliya balse markii la dilay kadib waxaa la sameeyay in meedkiisa xataa la gubay hooyo hindiyo waa hooyada dhashay marxuum Maxamed Deeq waxaana dalbaday booliiska dalka Koonfur Afrika in la keeno dalkan South Africa si loo baaro hidisidaha ama DNA-ga taasi oo loo maray habraaca booliiska adduunka ama Interpol hooyo hindiyo ayaa sanad kadib waxaan kula kulmay magaalada Polokwane iyadoo intii ay maxkamadda socotay mar walba aan tagay magaalada Polokwane si aan u hubsado halka uu ku dambeeyo kiiska Maxamed Deeq oo marka sida daradeed ayaan ku imid oo la soo darfiisada ciidanka South Africa ayaa soo darfiisada wallahi markaan imid kuleeba waxa la qaaday dhacan oo maxkamadana waan goob joogan ka ahay maalintii wiilka ninka maxkamadda oo wiilka dilay warbixintani oo dhameystiran si aad u dhageysatid ama aad u daawatid waxaad ka heli kartaa bogga YouTube-ka aynu ku leenaanay ee Somali Life ama ku dhufo linkiska korkaaga muuqda waad mahadsantihiin